waxaan nabada muhiim ah horta marka ugu horeysa cadaalada horta aqoon u noqonay waxaanu samaynay tababar ku saabsan qaabka looga hortago rabshadaha iyo mataqaanaa isku dhaca iyo xadgudubyada ama waxa la yiraahdo violence ama conflict luqada mataqaanaa Englishka toddobiyo labaatan qof baa ka qayb qaadanayay waxaanu isku daynay in aanu ka soo bilowno qofka bini'aadamkii dhexdiisa waxa la yiraahdo isku dhac ayaa ka jira ama mataqaanaa conflict qofka iyo deriskiisa ninka iyo مثلا xaaskiisa waalidiinta iyo carruurtooda oo kale deriska marka xididada mataqaanaa in laga soo xalliyo weeraha nacaybka aad iyo aad ay u badan yihiin nada dhiman karo waxaa ka mid ah waxbarasho la'aan ma jeceli 4.5 dagaal dulmi cay aad Soomaaliyeed waxaan aaminsanahay inaan waxa niyadeena ku jira aan qabanayno inaan xoogaa aad u ceshano aan dadkii la wadaagin marka kaasna macallin oo qaasatan ay noqon doonaa hadii Ilaahay raali ka dhigo markaan diyaaradii raacnay I was so excited qof aad u faraxsan ayaan ahaa maadaama wadankayga igu dambeysay muddo 22 sano ah at the same time na cabsi badanna way nagu jirtay farxad aad u weyn weyno ahayd wadanka waxaan ka maqnay muddo 22 sano Yusuf wuxuu ka maqnaa 23 sano anigana ku dhawaad 22 sano تيمك أستراليا من بيمي دكتور يوسف ودكتور خديجة آدينا بالمتسيين runtii dhowrkii maalmood afartii maalmood ee halkan soo wada joogay waxay ahayn afar maalmood oo aad qaali u ah adoo dareenkaaga la wadaagaysid qofkan khibradiisa wixii la soo darsa cabsida meesha uu kaga fakan jiray waxaasoo dhan indhaha lay ka eg reflection sameeyaysa dabun yani wax ka duwan tababaradii aan soo qaadan jirnay iyo ahaa tababarkan marka ugu horeyso waxaa la yiraahdaa waxa uu wanaagu macnaha uu ka bilowdaa yani qofku ka bilowdaa kadib uu macnaha waxa la yiraahdaa bulshada macnaha uu sii gudbaa barnaamijkan wuxuu ahaa barnaamij anaga Soomaali ahaan aan u baahanahay kana hadlaayo waxa dalkeena ka jira aniguna waxaan ka faa'iideystay waxyaalo aad iyo aad muhiim u ah sida loo xalin karo xitaa intaadan gaarin bi'ada nafsadaada horta sidee conflict hadaa qof kale la sameeysid sidee u xalinaysaa transformationka sidee u sameynaysaa aniga nasra ahaan aad iyo aad ayaan ugu faa'iideystay wadan ku mahadsantiin asaatidadeen Ariya Khadija waxaanu tagnay xeebta Liido waxaana loogu sameeyay qada sharaf aad iyo aad bay runtii xeebta Liido oo qurux badan tahay waxaanu damacnay anagoo dharka naga qabnay inaan iska dabaalano diyaaradii markii hawadii Soomaaliya ay gashay dareenkayga aad ayuu isu bedelay waxaan arkay anigoo qiirooday markaan arkay badii dhulkii aan sidaas u fiiriyay xeebteennii intay la eg tahay
in badan adduunka waan ku soo wareegay xeebo kala duwan oo adduunka ka mid ah waan wada arkay oo aad u qurux badan laakiin mar walba aan xeebahaasi tago macno weyn iima sameynaynin iyadoo waqti badan ay ka soo wareegato 20 sano laakiin dareenkaygii aad iyo aad wax aniga aan leeyahay iga maqnaayo aan arkay oo kale ayaan u qiirooday markaan diyaaradii ay degtayna to the point aan ooyay aan dhahay I cannot imagine inaan wadankan saa u quruxda badan aan leeyahay ana waligeena dareemin hadda dareenkaygana uu noqdo mid aan la qiyaasi karin هذه خديجة هوتيلك من التجية حنطول سطحية مقالة وظيفة يسلم أرقى أبسلوزلي برددي وقفي عليك وحاسي حمد أفرتها بين وجود البيسي قبيلة كذا ويل قبيل كلامك ويصوت وتروح اللي قبيل بس اسمه قال لنا حاران عند المسجد يعني ما أنا قبلت marka waxa jira dad fikradan aaminsan oo aan ka dhaadhicin karin baa inay jirto sinaansho inay jirto aan ka dhaadhicin karin dadka marka inta loo horta in la yiraahdo waxa qofkan intii waa qof liita aduguna aad tir qof fiican baa aduu fiican kaaga deysaba waa gob baa tahay nasab baa tahay deyso uguma haysan laakiin qofkan waxa uu kaaga duwan yahay nolosha iyadoo qodoba saadiga taada u qodobeynaysa in la yiraahdo baan ku darsanaa oo qodobkaas awoodda la saaro dib u dhisku iyo soo celinta mataqaana nabadu qaybo badan bay yeelataa dad baa abuuri kara fursado shaqo ganacsatada kamida dad baa wax bari kara dad baa mataqaana umada wanaaga wacyigelin mataqaana sameyn kara dhinacyo badan ay ka imanaysa marka anagu dhinacan isku daynay waa hal dhinac oo kooban cadaalad darray cadaabay cadaalad darray cabiid shay cadaalad darray caburiyay cadaalad darray cageeyay cadaalad darray cabiiday cadaalad darray cabsiinay xaqiiqatan training-kan waxaan ku tilmaami karaa mid ka mid ah kuwii ugu faa'iidada badnaa ee soo maray inta aan training xaadiray ama seminar aan ka qayb galay oo hore aan soo arkay wax conflict ama peace building ku saabsan ama facilitating community dialogue laakiin midkan wuxuu ii noqday midka aad macnaha qalbigayga u sii saxay oo wax badan aan ku fahmay markii aan imaanayna wax badan aan fahansaneyn maanta waxaan dareensanahay inaan fasiri karo macnahooda aan fahmo ay ka mid tahay conflictiga khilaafka sida ku dhasho sida loogu hortagi karo sida lagu yareyn karo aniga iyo Khadiija laba qof oo qurba ka yimid oo labadaba PhD ah haystaan oo nin iyo xaaskiisa ah xiise gooni ay runtii u sii lahayd waliba Khadiija khaasan waliba qof dumar ah saameyn gooni ah ay ku yeelatay laakiin anaga aad waxaan noo taabatay oo soo dhaweyntii ugu weyneed noo ahayd sida ay duruusta uga qayb qaadanayeen sida ay u imanayeen waqtigii xitaa ka hor iyo xitaa saacadaha aan u dhameeyay sidii u sii joogayeen xiisaha ay qabeen ee anaga xitaa inagu abuureen runtii wax loo dhigay la heli karin soo dhaweynta ugu weyni waa taa barnaamijka tagto dad aad ka faa'iideysan oo ka faa'iideysan oo xiisa u qaba markaad aragto taasi waa soo dhaweynta ugu weyn inta marka laga soo tago buraanburba mataqaana la tiriyay gabayaa la tiriyay inkastoo buraanburkii iyo gabayadu inta badan ay ku saabsanaayeen barnaamijkii laakiin haddana kuwa lama filaan anagu aan ku talagalin in lagu ammaano يا خاصة إنه لو تريي وليبا خديجة ومتقنا برامبر خاصة لو سي تريي ولا له هذا جبر بيجي هي ستة ودن متقنا الدجن أو غير قلبية أو برواقة أكتمد أنا هذا حبدي هذا الصو بريرت أدنوتي مع ده وليبا أنه جبر النادي استدي توان كبلاد جرتي أنه نيروبي كجتكني هبين كستمتقنا ويجي تلفون أنت نلو سوديري صور هذا اللي سوديري خديجة متقنا إسكو ويجي xiisada markaan galayna markaan fasal galayna ishalmaansiinaysay in aan ka tagay gabadheedii yareed oo aan 2 sano gaarin aad iyo aad ayay iigu adkayd iyadoo waliba aynan aqoonin dadka aan aga tagay daamaajo gabar walaashay aga tagay iyadoo yarun bay ogeyd markii sanadii 8 bilood dhalneed baan Nairobi tagnay waa garan kartaa hooyo cunugii ugu horeeyay ee maxallahay aabo kaga tagaan wadan kale ilmihi 2 sano gaarin it was very emotional wayna igu adkeyd laakiin waxa taas aad igala sii weynaatay dadkii Soomaaliga baahida ay u qabaan waxa knowledge-kan aan aqaano inaan u transfer garay aan u gudbiyo iyo gabadha yar laftigeeda hadaanan sacrifice la sameynin oo aan la dadaalin oo aan ayada laftigeeda mustaqbal nabad ahaan loo dhisin aan la tusin inay adkaanayso hadaa iyada kaligeed inta lagu dhago waa only gabadheeda aan la waa inuu intaas in ka weyn ay imaataa marka it was emotional it was very difficult aad bay igu adkeyd laakiin hadana waxaan istusay baahi badan inay jirto si aan aga faa'iideyno ummadda u baahan
cilmigeena inaan kula noqono ayaga laftigoodana aan wax ka soo faa'iideysano banaanta edabtiyo hannaankaaga siman baan sanado iyo sanado badan sadriganaga ka gugino waan kuu sacabatumaynaa kulanka noor waaxaye heayatiinka wacan kulanka noor waaxaye heayatiinka wacan digtooradu waay wadayheen doragii mudnaa Soomaalida hore u tiri aan wada hadallo waa aan heshiine hindisahaygu wuxuu yahay hadalkaan dhahayni iyo hannaankaan u doodaba in habtoosan loo maro barnaamij maxay ahayd maskaxdayda ay aad ugu baahnayd waxyaabo badan iga saaciday maxay ahayd hadda ma koobi kara laakiin hal iyo laba wixii igu muhiimsanaa haddii aan kasoo qaato barnaamij ka faa'iidaystay waxaa ahaa koo horta tacaamulna dadka sida loola dhaqmaayo yacni qofkii xumaanku ugu sameeyo sida maxay ahayd igu ajiibi lahayd ama ugu su-aalahaan ama jawaab ahaan ugu celin lahayd maxay ahayd qof inaan wax la wadaago kaleeto waan ka bartay waxaa kaleeto aan ka bartay yacni qof inaan u tanaasulo haddii yacni dhacdo inaan wax isku qabsano jawaanib badana maxay ahayd barnaamijka uga faa'iidaystay ujeedada macnaha idinka aad wadeen wuxuu ahaa inaad anaga fariin gaarsiisiin fariintaas marka waxay ahayd inaan anaga transforming aan ku sameyno marka insha Allah waxaa fariinta waan qaadi doonaa bulshadaan u geyn doonaa hadduu la yiraahdo aad laakiin way ballan qaadeen already inay soo noqonayaan jaamacaddana way ka go'an tahay laanna dadkan oo kale ciyaarna lagu helo taban waxaa soo galay wax aan aqliga galaynin oo dadaal ah ayay soo bixiyeen caalamkuna uu la garab galay yani dadaalka intan la eg ciyaar kuma imaanin waa marka waa dadaal weyn waaye dad marka meesha soo gaaraan qiimo weyn ay leeyihiin yani haddii dadkooda uu qiimaynaayo qiimo weyn bay leeyihiin labada victoria waaba diyaar oo halkani ku yimaadeen waxaan leeyahay jazaakum allah khayr jacaylka aad isku guursateen eed wax ku wada barateen eed noogu timaadeen oo dadkan oo dhan aad hadda quluubtooda ku kasbateen kaana waxaa weeye waa idinka baranaynaa haddii la yidhaahdo marka dad waxaanu aragnay aanu isu baahannahay ayaguna noo baahan yihiin anaguna runtii aanu u baahannahay marka waa mas-uuliyad qof kastaba saaran oo Soomaali ah oo qurbaha jooga ama gudaha jooga waddankaasi ummadaas sidii uu mataqaanaa dhinaciisa uga caawin lahaa waxna uga qaban lahaa wixii uu awoodo ama waxbarid ha noqoto ama xoolo iyo dhaqaale lagu tara ha noqoto ama hadowlaan wanaagsan iyo dhiirigelin ha noqoto ama ugu yaraan qofkii wax kale awoodo xumaanta oo uu ka reebto ummadaas uusan dhib u geysan ha noqoto waxaanu mustaqbalka ani iyo Khadija waxaanu damacsannahay arrintan inaanu sii wadno qoys ahaan dad kale oo badanna mataqaanaa aanu ku soo daro mataqaanaa barnaamijkan inaanu sii wadno tababaradan sii xoojino waxaanu isku dayaynaa mustaqbalka wax jaamacad u dhigma ama institute oo kale inaanu samayno baaritaan ka sameeya arrimahan hadda aanu ku mashquulanahay dhinaca kaleetana tababaro ka sameeya waxaanu isku dayaynaa iskuulaadka dugsiyada hoose dhexe ilaa sare manhajka inaanu ku darro maadooyin lagu dhigo oo sida mataqaanaa loo xalliyo dhibaatooyinka isku dhaca looga hortago wax loo wada qabsado wax la yiraahdo cooperation loo wada sameeyo maalin kasta dhibaatada qofka dhacda qaab uu mataqaanaa xal ugu raadiyo khibrad noocaas inaanu la wadaagno marka manhajkan in lagu daro maalintii ugu horeysay ilaa maalintii ugu dambeysay hal qof kamuusan maqnaanin ilaa xataa inaan arko qof arday ah oo aad u soo ordayay isagoo dhidid ka daadanaya ku yiri maxaa kugu dhacay maanta imtixaan baan ku lahaa meel kale laakiin maadaama casharka aad interested uu yahay waxaan u soo cararay inaanan misgareyn marka dad waxay ahaayeen aad ugu baahan cilmiga iyo fursadna u raadinaya inay u helaan dad Soomaali ah oo u gudbin kara baahida ayaga ay tabanayaan ayagana laga dhageysan kara sida idin muuqato waxa meeshan aan ku joogno waxa waaye waa ardaydii waaye oo yani aan kala hadlaynay muhiimadda ay leedahay conflictiga iyo in mataqaanaa yani laga gudbo يعني لونه جذب وضحضل سي لو جارو محل يرادا هنا يدتكي معناها وضنولادان يعني نلو وناكسن معناها أي وضقاتان هالكي أي كقاضن لهاين دتكم محل يرادا إن إسكود عن مركا كل فرينتا أنا جهر أوصى قاضني ما أنت أرضي ده نوجد بيني
ardaydiina kulley dib ayagana maxaa la yidhahdaa ay ka qaadayaan oo yacni meelahay ka imaadeen bay maxaa la yidhahdaa u gudbin doonaan hadduu ilaa yidhaahdo. waxaan ku faraxsanahay in barnaamijkaas aan wax badan aan ka faa'iidnay oo bulshadii aan la galnay nafsadeen aan ku dabaqnay oo dadka kale aan ku dabaqnay oo mararka qaar xitaa ardayda aan siino barnaamijkan si baraatika ah aan ugu faa'iideynay qaarkooda ay noo mahad celiyaan anagana bulshadii aan kula laabanay barnaamijkii wuxuu ahaa barnaamij aad ugu faa'iideysan oo maantana ka dhex muuqda aan isleeyahay bulshadii aan ku laabanay maadaama si baraatika wixii aan u galnay oo conflict badan oo ama dhanka family ahaata ama dhanka arday ahaata ama bulshada kale aan la noolnahay aan aragnay inaan xallin karo taasoo awal awooddaas mid ahayd naga qarsooneed laakiin taasoo maanta bannaanka taalo. dhibaatada ugu weyn haddaa weydiisa labada qof oo Soomaaliga markay isdagaalayaan is-fahmid la'aanta ayaa ugu misunderstanding iyo qof walba isagoo isla saxsan ama pride-nimo ay ku jirto uu leeyahay qofka kale isagoo og xataa dhiiba inuu qofkan yahay inuu still isleeyahay adiga isfaham gareeyo adiga qofkii raynaya adiga ah. Soomaalidan waxay aad u tiraahdaa geedka markuu uu yar yahay haddii la tutuusiyo koritaankiisa then marka dambe wax la harsado ayuu noqon doonaa. arinta kale oo aad muhiimka u ah 70% Soomaalida hadda estimationka la sameeyay in Soomaaliya 70% waxay ka yar yihiin da'da 30 sano. That means waxa hadda soo socda generationada soo socda dadka youthka un bay yihiin marka waa in ayaga xooga la saaraa si futureka mustaqbalka Soomaaliya ay u noqoto dad wanaagsan oo howlahoodii wadan kara. waxaan ku bilaabnay Muqdisho University inaan training ku bixino December hadii Ilaahay yiraahdo waxaan rajaynaynaa inaan 3 meel oo kamid ah Soomaaliya Garowe Hargeysa iyo Muqdisho aan training ka hadana bixino. marka barnaamij xiisa aad iyo aad wala iyo ahaa sida dadku ay mataqaanaa noo sheegeen saameyn runtii nagu yeelatay ilaa aanu hadda ku haminayno inaanu noqono bisha December hadii Allah idin aanu sii wadno nolosha danyarta ka hadda insha Allah. sinjigan wadagniyo sartanaga dhexeeya sinjigan kala saarmi maayo kalana saarmi maayo sokeeyo walaalo Soomaalinimadii weliba sideedii Soomaalinimadii weliba sideedii sokeeyo walaalo Soomaalinimadii weliba sideedii Soomaalinimadii weliba sideedii الذي جلس جناي دفك قصر حانو يسوع راعت الذي جلس جناي سنجيغا وداغنيو سرتنا غادي حيا سنجيغا وداغنيو سرتنا غادي حيا قال سرمي مايو قال نسوني ماي سكيو ولا لو صومالي مدري ولي وسيدي صومالي مدري ولي وسيدي